السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. صدوا صاحب ومركلة مقال عصو مقال كنن ما تحنقال دونا ما نكشرح دونا سيدة كوغان لهيد مقعايا أصحاب تاذو كوسف كريستين سو كلا ابليكيشن كلا ما تكلو دا قدونو واحد كوغان كرتا أصحاب تاذو استعماشا ابليكيشن كان مقعان تا يكوسف كريستين دادك كلا ما يغانا أصحاب تاذو كوسف كريستين هذا بغورهين أي نقو دا قالنا مقالك. marka ugu horeysa application waa kan magaciisana waxa la yiraahdaa get contact application kan ku qorno imka Play Store ka imka hadaan ku qorno inoo soo saarayo application kan laga ma ogola guud ahaan Somaliland amba Soomaaliya laga ma ogola application kan wuxuu ku soo saarmi doonaa application kale oo far badan hadda uu ku leeyahay application kan this atom not available your country ay qoran doonaa hadaba saad la soo degtid meeshan waxaad ku qoran doontaa VPN ay ku qori doontaa qaybta searching ee Google Play Store ka VPN ay ku qori doontaa kadib VPN-nadan qaar badan ay ku soo saari doonaa ka rabtay la deg doontaa anu mid kan ayaan la degay waxaan kula talinayaa mid kan la degtid oo si sax oo fiican kugu soo saarmi doona hadda markaad san sameeysid la soo degtid VPN-kaaga si aan u bedelna country-ga amba wadanka Play Store keena waxaad tagi doontaa settingska mobilkaaga amba qaybta laga maamulo waxaad ka soo tagi doontaa meesha ku qoran tahay apps markaad tagto waxaad ka tagi doontaa Google Play Store ka tagi doontaa kadib meesha storage ku qoran tahay ku dhufan doontaa clear ay oran doontaa dhammaanteed markaad san soo clear gareysid waxaad tagi doontaa VPN-kaaga VPN-ka la soo degtay aad tagi doontaa si aynu ugu xidhanno inuu bedelno wadanka Play Store keena marka ugu horeysa markay qaabkan kugu soo furanto connect oran doontaa markaad saa ugu soo xidhateed connect tiraad waa iska soo baxmi doontaa waxa soo furan doontaa Play Store keenu kala gareynay oo wuxuu nagu soo furmi doonaa haddaba marka ugu horeysa wuxuu kugu soo baxmi doonaa interface noocan iyo markii hore interface-kii hore uu lahaa Play Store-ku markii uu Soomaaliya amba Somaliland ugu xulsanaa kuma soo saarmi doono qaybta searching ee Play Store-ka soo furan doontaa kadib waxaan ku qoran doonaa get contact amba application-ka magaciisa aan ku qoran doonaa search oran doontaa markaad ku qortid application-kan magaciisa sad aragtaanba get contact imka si rasmi ah inuu soo saarmi doonaa application-ku waa midkan waxa la degay in ka badan 100 milyan oo qof marka ugu horeysa in soo saaran doontaa tan anu aan store gareysay kaliya open aan doonaa baan soo furan doonaa haddaba marka ugu horeysa application-ku qaabkan ay kugu soo furmi doonaa amba interface-ka loogada hore nooca application-ku waa noocan agree and continue aad ku dhufan doontaa start no oran doontaa kaliya application-kana xagana wax ka dooran doontaa get contact oo waxaad ka bedeli doontaa contacts-kaaga caadiga sidaas default ay soo doontaa bartan waxaad ka xiran doontaa login with Google oo waxaad ka xiran doontaa Gmail-kaaga oo kaliya tadan waxba baasuura gelin waa dooran doontaa login with Google waxaana dooran doontaa email-kaaga haddii email hore kugu si sameysnaa oo dooratid si toos ah koonkaaga hore ayuu si toos kugu saarmi doonaa markaad san dooratid Gmail-kaaga qaabkan ay kugu soo furmi doonaa kaliya tan application-ka laguma isticmaalay lagu ogaado asxaabtaada magacyada ay ku save gareysteen continue ay oran doontaa oo number-kaaga aad gelin doontaa si aan u verify gareyno amba loo xaqiijiyo number-kaaga aad gelin doontaa maadaama number hore nagu sameysan yahay oo kan tusaale yahay ku kala weeyaan continue ay oran doonaa markaad saa u sameysid haddaba code-ka waxay kugu soo diri doonaan WhatsApp-kaaga WhatsApp number-kaaga amba number-kaad gelisay WhatsApp-kiisa ay ku soo diri doonaan marka hadaan tagno WhatsApp-keeni isla markaaba code-ka waxa kugu soo diri doonaan qaybta message-yada kugu soo dirayaan ee waxa kugu soo diri doonaan WhatsApp-kaaga copy code ay oran doontaa markaad saa u tagtid waxaad ku noqon doontaa application-kii si toos ah isku gelin doona your phone number has been verified inuu yiri oo si toos ah weyn u dhameeyay application-kan imkan waxaan ogaan doonaa dadka asxaabteenu magacyada ay nagu save gareysteen iyo sidoo kale asxaabta kale isticmaasha application-kan magacyada ay dadka kale ku save gareysteen
waa kan qaabka hore oo qaabkan ay noogu soo fahmi doonaa skip imka iska odhan doonaa amba continue odhan kartaa dad baan tahay taggingooda asxaabtaa ku infadgareynaysid. haddaba marka ugu horeysu qaabkan kugu soo baxmo waxaad halkan ka arkaysaa dadka kale asxaabtaada kale ee ku jira meeshan imika Shafaa Official oo keena kala amba numberkeena kala haddaynu eegno imika tagskiisa 320 ka badan oo magac ayaa lagu save gareystay. marka magacyadan ma aha magac uu qof walba ku save gareystay ee waa magacyada ugu badan ee lagu save gareystay. imika Shafaa Official maxaa Shafaa tiimaha dhammaan magacyada 320 ka magac ayaa imika lagu save gareystay numberkeena kale. soo kale numberkana aan isticmaalay oo cid save gareystay ma jiro, kaliya hal mid ayaan ka save gareystay oo imika may tagas haddaan idhaahno waa kan show more aan idhaahno kaliya waxa aan numberka kale oo kaliya ayaan ka save gareystay. balse halka cilada application uu yara leeyahay waxay tahay ma ogaan karayo qofka magaca ugu save gareystay qof ma aha, balse wuxuu ku tusi doonaa magacyada ugu badan ee lagu save gareystay numberkaaga oo imika numberkiini kala hadii gelin lahayn waa kan ilaa waxa lagu save gareystay ilaa 320 magac oo kala duwan ayaa lagu save gareystay. imika Shafaa Official inta qof ay ku save gareystay halka ayuu ka soo qaadan doonaa magacyada kalena waa isku wada mid. application-kan inaad aad iyo aad ugu wada faa'iideysanayaan filaya intaasna soo gabagabada muuqaalkeenan fadlan hadii tahay boqoshoodka subscribe saar video like saar aad iyo aad baad mahadsantahay.